wadada ka soo socota boosaaso ee maanta ku soo fool badan wadada waanu soo dhaweynaa haddaan nahay gobolka Sanaag hal doorkiisa iyo aqoontiisa iyo dhalashadiisaba wadada waanu ku faraxsanahay waxaanuna rajaynaynaa insha Allah inay si dhaqso ah Ceerigaabo boosaaso ga soo gasho taa horta waanu hambalyeynaa waxaanu kaloo aanu maanta halka kan dhagax dhigaynaa wadadii tabca baaq dheer u diraynaa dadka Soomaaliyeed khaasatan reer Somaliland iyo reer Soomaaliyaba waxaanu ugu baaqaynaa Djibouti kilalka shanaad Abdi Umar waxaanu ugu baaqaynaa nin kasta Puntland madaxweynaheeda Soomaaliya madaxweynaheeda inay wadada nagala soo qayb galaan oo nala dhisaan Muuse bixina waxaanu leenahay madaxweynaha tahay Somaliland waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaadna inaad qaybta ugu weyn ka qaadato wadada waa la wada dhisaa waana la wada maraa cid gaari ma marto waxaanu leenahay aynu weelka aynu sideeno aynu wax wada qabsanayno weynaysano yaan laga biqin wadadaas mayd ee maanta la dhagax dhigayo meel kasto aanu uga helayno musaacado iyo meel kasto aanu adduun uga helayno iyo meel kasto aanu lacagteeda iyo waxeeda uga helayno waa tagaynaa waana u doonanaynaa kana xishoon mayno kana biqin mayno waxaanu idin leenahay maanta la dhagax dhigayaa waxa dhagax dhigaya insha Allah boqoradii cuqaashi wax garadkii reer Ceerigaabo wadada laga soo qayb galo lacagta la iska bixiyo $1 iyo $2 iyo $3 bay wadadaas ku dhismaysaa ma aha wax laga boqo waxaan leenahay horumarka waynu wada leenahay waxaan leeyahay halamu war wadada loo midoobo laga soo wada qayb galo ayaan leeyahay wadada halkan tabca ee isku xidhaysa mayd dekeda gobolka Sanaag ee magaalada madaxda Ceerigaabo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay noo aqbalo amiin dadkana waxaan ka codsaynaa cid allaale haday muslimiinta cid allaale inay ka soo qabto wadada wax ku darsato waxaan kale halkan fariin aan gaarsiinayaa walaalaha reer Djibouti halkan waxa ku duwan shiikh Ciise waqtiyada ay ku imanayaan booqashada si ay ugu fududaato booqashada awoowahood waxaan leenahay wadadan contribution-keeda nagala soo qayb gala waxaan halka uga daynaa fariintaas aan leenahay waxaan fariin gaar ah gaarsiinaynaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ee dalkiisu ay mahadiyeen iyo dadkiisuba waxaan isleeyahay haddii Soomaaliya ay lahaan lahayd afar Ismaaciil Cumar Geelle oo kala ah waxaan ku biiri lahayn barwaaqo soorag marka Commonwealth-kan ku biiri lahayd marka insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inaad baaqaas ku soo gaaro wadada wax naga qaban doonto dhammaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa dhinacay doonto naga xigto qorrax ka dhac qorrax ka soo bax dhinaca naga xigtay waxaan soo dhaweynaa waxaan leeyahay walaalayaal ka soo qayb gala waa wadooyinka laba kala leh waa caalami adduunka oo dhan bay ka dhaxayaan sidaa waxaanu aad iyo aad ugu codsanaynaa in laga soo qayb galo mar hadday Djibouti gaadhay jaan qaaday mar hadday Djibouti gaadhay way jaan qaaday dhulka kalena way gaari doontaa wax allaale wixii nagala qayb gala mahad baanu celinaynaa Djibouti Soomaaliya Puntland Somaliland annagu waxbaanu doonaynaa wax diidi mayno waxaanu leenahay cid allaale ciddii arinta wax naga taraysa muslim iyo dawladba waanu soo dhaweynaynaa waanu isku raacsanahay fikradda sida daraadeed walkan baanu leenahay cid allaale ciddii arinta wax ka qabanaysa